بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكة sologroups.com ee laga barto ICT iyo English oo ku bax luqadda afka Soomaaliga magacaygu Cabdinaan Ismaaciil waxaad nagala soo xiriiri kartaa mar walba info@sologroups.com waa casharadeen imtixaanaha ahaa ee English language ama luqadda Ingiriiska waxaanu soo gaarnay a test your English ama tijaabi Ingiriiskaaga طبعا casharadii hore waxaanu ku soo qaadanay bilowga iyo ku dhawaaqida kuwaas oo kala ahaa a beginning iyo pronunciation ayaan ku soo bilownay marka stage-kan ama qaybtan xilliga la soo gaaro waxa muhiim ah ardayda in ay kala baxaan kaasoo ah level kala duwan waa inay lahaadaan sababtoo ah ardayda qaarkood waxa laga yaabaa xilliga aan sameynay ABC in ay xogaa ayaab la noqotay oo ay yiraahdeen ABC waa naqaanaa marka labada cashar muhiim ayay ahaayeen in ardaygu ama ardayda ay indhaha ugu furmaan iminka haddii aad stage-kan ka gudubtid test your English ama tijaab Ingiriiskaaga waxaad ogaanaysaa meesha aad ka joogtid luqadda Ingiriiska ama heerkaad ka gaari kartid marka wuxuu noqonayaa English level iyo progress test marka levelkaaga iyo meesha aad ka joogtid iyo tijaabo aan ku samayn doono sidii waxa u samaysay ama progress u samaysay saa awgeeda casharadii hore ku laabo kadibna kan soo raac sidii caadada ahayd waxaa halkan noo taala shabakadda sologroups.com haddii aadan ka diiwaan gashanayn طبعا halkan tag members si aad isaga diiwaan gelisid wax walba ku jira ICT iyo English language aad u isticmaashid oon ayaan ku nahay mar walba waxa muhiim ah casharada ku dhaafo halkan ayaa laga helaa halkan ayaa lagu qoraa raadi wixii ku dhaafay marka waxaan tagaynaa English kadibna tutorial ayaan tagaynaa waxaan soo dhaafnay bilowga iyo ku dhawaaqida casharada iminka waa English test haddii sidaan aan u furo waxa ii soo baxaya I want to test waxaan doonayaa inaan tijaabiyo my English level Englishkayga heerka uu gaarsiisan yahay waa in aan eegaa si aan u raaco marka halkan waxa yaala this test waxaana muhiim ah in aan Ingiriiskan ku aqriyo sababtoo ah waxaanu doonaynaa qaabka loogu dhawaaqo iyo qaabka loo yiraahdo in isla markii aad hore ka fahmi kartaan ugu horreyn Ingiriiska ayaan ku bilaabayaa kadibna waxaan isku dayayaa in aan af Soomaali ku micneeyo qaarkooda wuxuu leeyahay this test will help to give you an idea of which of the ESOL marka ESOL waxay ka timid ereygan mar badan aad arki doontaan waxay ka timid English for speakers of other language shakhsiga baranaya luqadda Ingiriiska isagoo luqad kale ku hadla imtixaankeeda ama examkeeda waxa ku xigta KET oo iyadana ka timid key English test ka timid waxa kaloo halkan yaala PET oo iyadana ka timid preliminary English test English hordhac ah oo tijaabo lagu sameeyo ayaa la yiraahdaa preliminary ayaa la yiraahdaa iyo ugu dambeyntii FCE waxay ka timid a certification of English ama shahaadada ugu horeysa Ingiriiska marka waxaan leenahay you should consider once you finish the test you can do one of the practice papers on this website and see how difficult it is for you if it is too easy you should think about doing the next most difficult exam if it is too hard then perhaps you need to practice some more if you want to do one of the English courses on this site, then remember that the beginner's course will help you to prepare for the ACET ama waxay ka timid kan a key English test. The elementary course will help you to practice for the PET. waa la kala saaray kan wuxuu ka imaanayaa preliminary English test ayuu ka imaanayaa kadibna wuxuu ku leeyahay intermediate will help you to studies for the FCE or a First Certificate of English marka
halahan xilliga aad ka gudubtid imtixaanada noocan ayaa isku diyaari kartay ay ku leeyahay marka kan wuxuu ahaa my English level kan wuxuu ka caawinayaa in aad geshid imtixaanka ESOL-ka la yiraahdo oo laga soo gaabiyay English for speakers for other language dadka luqadaha kale ku hadlo English doonay inay bartaan imtixaankooda iyo KETkan PETkan iyo FCE marka mar walba xuso ay ku leeyahay xilliga dhamaysid ee tijaabada sameynaysid waxa sameyn kartaa hal ama kuwa kale ay sameyn kartaa oo ku jira shabakadan ku jira mar walba waxay ku xiran tahay siday ay kugu adag tahay ama siday kugu fudud tahay marka mar walba kan ugu dambeeyo ugu adag gadaal waa inuu maraa tabcan hadduu kugu adkaadana marka wuxuu noqonayaa in aad tijaabooyin aad u badan ama practice more aad samaysid haddii aad doonaysid inaad samaysid luqadda ingiriiska oo shabakadan ku jirta dan waxaa xasuus mudan beginner course-ka wuxuu ku diyaarinaya ama isku diyaarin kartaa KETkan aad samaysid kan kale elementary wuxuu kaa caawin doonaa inaad samaysid PAT intermediate wuxuu kaa caawin doonaa inaad samaysid FCE marka waa muhiim kadib markii aad istiraadid diyaar ayaa tahay halkan waxaa yaala a progress test marka in wax iska kaa bedelin markaas aad eegaysaa marka wuxuu ku leeyahay now you have a chance to test yourself on your progress in the first 3 units below you find a test on your vocabulary a functions and a grammar waxaana xusuus mudan in casharadii hore aan ku soo aragnay vocabulary a functionka iyo naxwaha grammarka all the words and grammar points have been used in this exercise in the past 3 units halkan ayay ka imaanayaan the tests are all levelada kala duwan ay kala yihiin levelka solka ku jira wuxuu ku leeyahay the tests are for all levels so if you are not an advanced student do not worry if you cannot answer many of the question haddii aadan ahayn shakhsi advance ah ama dhanka ugu horeeya ugu horumarsan jooga waxbaa kala welin marka kan waxba ha samaynin ugu horeyn waa inaad halkan aadaa oo aad eegtaa waxaa samayn kartid marka waxaanu samaynaynaa qaar ayaan ka soo qaadanaynaa kadibna kan ayaan eegaynaa marka adiga ardayga ah adoon qashin waqtigana aan ku kordhinay ayaa lagaa doonaya inaad samaysid maxaan samaynayaa start here English level halkan ayaan ka bilaabaya waxaa ii soo baxaya qoraal iyo jiif cartoona wuxuu leeyahay this test will help you to decide which English exam you should do tijaabadan waxay kaa caawin doontaa imtixaanka ingiriiska oo is leedahay waa geli kartaa after the test you'll see a score xilliga tijaabada samaysay kadib waxaad arkaysaa score ama waxa kuu soo baxay waxaad samaysay and a suggestion which level English exam you should try iyo iyadoo lagu sheegayo levelka ingiriiska oo imtixaanka u geli kartid your English test is 3 parts English test wuxuu noqonayaa 3 nooc oo kala duwan 3 dhinac vocabulary a grammar iyo a reading akhrinta oo muhiim ah marka halkan uu inoo wada yaalaa marka wuxuu ku leeyahay click menu above wakan and you must do each part of the test less than 2 minutes when I samayso awal hal daqiiqa ayuu ahaa marka waxaan ka baqay ardayda qaarkood in ay yiraahdaan waqtiga ayaa gaaban marka wuxuu ku leeyahay good luck marka anigoo ardaygii ah waxaan ka bilaabayaa vocabulary halkan ayaa riixaysaa vocabulary ayaa riixaysaa waxa kuu soo baxaya timeka ugu socdaa which of these is a bird kee ah qoraaladan afarta oo saddexdaas ku qoran kee ah shimbir طبعا chicken ayaan leeyahay hal point ayaan halkan ku helay which one you can eat wuxuu ku leeyahay a sandwich sigsaan iyo albaab طبعا sandwich ayaa la cunaa laba dhibic ayaan helnay which one can fly kee duuli kara fardaha ma duuli karaan fiidmeerta ma duuli karto fiidmeerta duulaysa طبعا butter maaragtay subaga rootiga la marsan ma duuli karo marka baadka ayaan ka dhigaynay saddex ayaan qaadanay which one hoos usoo ayuu ku leeyahay scroll down scroll waa hoosiya which do you wear a belt طبعا suunka kana waa maaragtay belka kana waa bolt marka belt ayaan leeyahay which is an animal kan waan baran doonaa kee ah xaywaan fox waa dawaco fix la samayn faxna waan naqaanaa oo fox ayaa xaywaana which do you find on the water a boot a bed iyo boat طبعا kan ayaa lagu qaldaya laakiin waa kan ayaa sax ah raadigu noqday which is a job a sale a butler a post office طبعا a butler waa shaqo waaye post office ma noqon karto raad kan ayaa noqonaya which is dangerous a kitten am kulaal yar
a puppy ear iyo murderer dila kan ayaa طبعا which is a tree an oak an or an off oak ayaa tree ama geed and finally 3 points a gluttony is connected with what feed fire and food waxa hadii aan iraahdo food maxaa dhacaya sax you scored marka wixii dhan waan sameeyay how do I do akaas macalinka wuxuu sayay score 12 points by this score you should try a FCE exam or an English teaching a job marka xogaa waa sarcasm ayaa la yiraahdaa waa kaftan nooc kale marka waxaan gaaray FCE ayaan gaaray kaas oo first certificate of English kadib waxaan ku laabanayaa home-ka ayaan tegayaa marka adigoon qish aan samaynin ku laab isla meeshii waxaad leedahay waxaan doonayaa iminka inaan grammar aan eegayaan doonayaa marka mawduucan wuxuu ku leeyahay kan laba daqiiqo ayaa lagu siiyey click on the green and red marka kan laba ayaan ka taabanaya inta kale ardayda ayaa la doonaya sababtoo in la isqasho la dooni maayo I want to be alone waxaan doonayaa inay keligay ahaado dadku waxay leeyihiin I want to be alone this sentence is correct ereygan ku qoran halka waa sax this sentence is wrong qalad marka kan haddii aan xusho maxaa dhacaya hal point ayaan helay E.T. Phone to Home E.T. waa film la sameeyey oo maaragtay Steven Spielberg uu sameeyey marka ereyga ma sax baa طبعا waa qalad sentence qalad ayuu noqonayaa 2 points ayaan ku helay marka inta kale adeega ayaa laga doonaya aniga ma doonin inaan sii wado I don't think we are in Kansas anymore marayn maayo weli in aan joogno gobolka Kansas ee waddanka Mareykanka it was elementary mine dear Watson adiga ayaa laga doonaya so we meet ourselves at last Mr. Bond waxaa laga wadaa a James Bond waayo aragnay waxaan israadinaba oo kale marka ma sax baa ma soo qalad sentence-ga ma sax baa ma soo qalad waa socdaa time-na kugu socdaa la soco to infinity and beyond ma qalad baa mise waa sax infinity bilowga ilaa dhamaadka ay noqonaysa beyond iyo wixii sii gudbo iyo qofku lii frankly my dear I don't give a damn wuxuu ku leeyahay haddaan si daacada kula hadlo gacaliso wax iga gala male go for your gun you dirty rat soo qaado qorigaaga dooliga wasaqa af Soomaali hadii lagu fasiro tabcan ma noqonayso wax sax laakiin go for your gun you dirty rat marka frustration ayaa hayo ujeeda qofkii of all the bars in the old world she had to walk into mine baararka intaan bar adduunka ku yaalo makii aan joogay iimaanaysa this is another fine mess you've got into us waa kan bal waxa isku qaladay iyo waxa isku keentay bal eeg ay ku leeyahay waqtigii maxaa kugu dhacaya oo kugu socdaa maxaa dhacaya aniga waxba ma sameeynin iminka waxaa leeyahay you score 2 points by this score you should try a CAT exam ayuu ku leeyahay haddii laba kaliya aad samaysay kaasoo key English test marka xaalkaaga fiican ayuu leeyahay marka haddii aad doontid home-ka ayaa tegaysa laakiin halkan ayaan tegaya reading-ka haddii sanaan u riixo waxaa yaala hadda waxaan ku noqonayaa home-ka ayaan ku noqonayaa waxaan doonayaa vocabulary gadal ayaan u laabanayaa wax yar grammar waxaan doonayaa iminka reading ayaan doonayaa reading-ka grammarka wuxuu ahaa kaliya hal reading-ka waxaa ku yaala reading 1 reading 2 reading 3 ama akhrinta reading waa akhrinta kan ayaan riixayaa waxaa halkan yaala qoraal 2 daqiiqo طبعا waa la kordhin karaa wuxuu leeyahay Pete has torn up his note put it together Pete wuxuu jeexjeexay ama jeexay had qof soo yaqaano note-kii ama waraaqdii waxay u qornaayeen isku keen oo isku aadi a click riix a drag soo jid pieces to move them marka aka welwelinkan oo ku laabanayna markii aan gaarno meeshii aan doonaynay move them and the answer 3 questions you have 1 minute ayuu ku qoran yahay laakiin kan waa 2 minutes aan ka dhignay marka read the questions then press start to begin marka waxaan doonaynaa ha dhamaado kan waanu sugaynaa si aan ugu laabano marka waxaa muhiima inaad halkan eegtid Joe sells pizzas shakhsigan Joe yiraahdo wuxuu iibiyaa pizza ayuu iibiyaa waa s ayaa la socota plural waanu baran doonaa ma sax ba mise waa false waxaan jirin Pete is going to cinema with Mike Pete wuxuu u raaci doonaa shineemada shakhsigan la yiraahdo Mike ma sax ba mise waa qalad Pete invited Angeline to dinner Pete shakhsigan la yiraahdo wuxuu ku casuumay gabadha la yiraahdo Angeline in ay casho u raacdo ma sax ba mise marka ma ogaan karno ilaa halkan aan ka bilowno halkan weli bilaabi karno sababtoo time-ka ama waqtiga ayaa nagu yar
waxaan sugayaa ilaa kan uu ka dhammaado isla markii waan ku laabanaya halkan ayaan tegayaa waxaan leeyahay kan ayaan ugu laabanaya meeshuu iga bilaabaya iminka waa bilaabay start ayaan leeyahay marka waraaqasan ayuu kala taala waxaa lagaa doonayaa a sentence inaad isku aadiso waraaqdii uu Pete jeexjeexay marka halkan daan soo dhigo wuxuu leeyahay dear Pete thank you very much for your invitation waad aragtaa kan halkan aan soo dhigo invitation for your invitation ujeedaa for your invitation to dinner on Saturday night. I am sorry to tell you that I cannot come because I promised Mike that I will go with him to the cinema. waxaan filayaa inaad si fiican aad u fahanteen kana kadibna wuxuu leeyahay halkan iyo halkan ayuu saan soo dhigayaa wuxuu leeyahay marka why don't we go the Joe's Pizza place on Wednesday arbacada instead write let me know if you're free marka waxaa lagaa doonayaa in aad fahantid xawaare ayuu ku socdaa waxaa lagaa doonayaa waqtiga inuu dhammaanin inaad fahantid pointiga marka waxaan samaynayaa xilliga casharku idin soo gaaro 5 daqiiqo ayaan ka dhigayaa si qof walba uu u gaaro marka haddii aan ku laabto readingkii aad ayuu xiiso leeyahay isaraan idhaahdo waxaan fahanay in invitationkii wixii dhan ay dhahan marka Joe sells pizza ma sax baa mise waa been marka aan kala saaro mar kale marka a Joe a pizza waa sax Pete is going cinema with Mike marka wuxuu leeyahay Pete wuxuu u raacayaa cinemada ama Mike I promise ayuu leeyahay I'm going through marka Pete invited Angelina's dinner a false ayaan leeyahay marka how did I do a 4 point by this score you should try KET exam oo ah Key English Tester marka saan kaga balan qaaday 5 daqiiqo ayaan ka dhigayaa marka haddii aan ku laabto halkan aan idhaahdo reading number 2 aan idhaahdo waxa ii soo baxaya 2 daqiiqo 5 ayaan ka dhigayaa kanna si ardayda ay u fahmaan put the advertisement with this picture xayeysiintan iyo sawirka isku aadi a friendly well trained waa saaxiibaysan ama saaxiiba si fiican loo tababaray only for sale because owner is leaving the country a bargain of $350 marka waxaa lagu leeyahay si fiican loo tababaray oo aad saaxiibtinimada ugu wanaagsan isla markii waxaan fahmi karnaa in uu yahay dog uu yahay afarta ayaan riixaynaa waa sax kan wuxuu ku leeyahay unwanted gift for sale maaragtay hadiyad aan la doonin in la iibinayo it takes excellent pictures masawir aad u qurux badan ayay qaadaa sawir was new only for 4 months ago 4 bilood ka hor cuseeb ayay ahayd $300 highest offer qofka lacagta ugu badan bixiya ayaa qaadanaya dabcan waxaan fahmi karnaa kan ayuu noqonayaa 2 ayaan leeyahay waa sax the game of the year ticketka waan fahmaynaa meeshuu ka socdo chance to be in the front seat waxaan garanaynaa inuu yahay number 3 uu yahay gameka call numberkan 3 waa kaas ugu dambaysin high quality material ideal for a home or small office 200 at Harry's Business Supply waa quality aad u wanaagsan waxay samaysaa xafiis iyo guriga loo isticmaali karaa 200 waxaad ka iibsan kartaa meesha number 1 ka ayuu noqonayaa waad u jeedaa marka waxaad ogaanaysaa aad isku daraysaa wax alla wixii isugu aadaan waa fahmaysaa markaas waxaad ku fahmaysaa luqadda ingiriiska waa qaabka lagu fahmo oo qof walba uu u geli karaysaa marka ma sugayno waqti hore ayaan dhamaynay reading 3 ayaan leeyahay kan aad ayuu muhiim u yahay pointska lagu helo fiiri wuxuu ku leeyahay here you find a material form wuxuu leeyahay house destroyed by lighting blast cat survives newspaper ayuu ka yimid sababtoo ah waxaa loo baahan yahay wuxuu raacayo click on correct icon ayuu ku leeyahay rising over 20% after interest rates are taken into the account waa lacag طبعا waa iga hormaray kan ayuu ahaa kan jaceylka ayuu noqonayaa marry you aan guursanaya waan ku dhunkanaya oo laba kan ayuu noqonayaa kan wuxuu noqonayaa wax ka soo baxay ee newspaper ka yimid ayuu noqonayaa waad helaysaa marka ayuu ka hormarin kan iminka waxaan samaynaynaa kan waxaan tegaynaa a singer admits to love sweet cakes waa kan a contract to be signed by completion by March 18 waa kaas marka wuxuu noqonayaa here to find material kaasoo ah a love letter a business proposal iyo local newspaper can't live without your loves kan ayuu noqonayaa marka jecelkaaga without your loves paid for euros or dollars specified when kan ayuu noqonayaa marka kan ayaad eegaysaa
waxaad la gelinaysaa grandmother has an expected fifth child ayeeyo waxay heshay cunug aan la filayn cunugii shanaad kan ayuu noqonayaa losing interest in money losing sleep kan ayuu noqonayaa tabcan kadibna waxaa soo baxaya kan ugu dambeeya oo ah scorekuu noqday by this score you should try wixii aad doontid ayaad samaynaysaa marka qaabkaas u shaqeeya haddii hal mar aan ku noqo reading aan idhaahdo wuxuu kuu sheegayaa love letter a business proposal waraaq jecel qof business kula yimid wuxuu aada proposal wax lagula yimid oo maaragtay ma isla qabanayna lagu yiri iyo local newspaper marka waxa lagu leeyahay click on riix the correct iconada waa kan where the sentence appears meesha uu ereygaas oo sentence uu ka yimid maaragtay halka kanoo kale hadda mary haddii aynad waa kan straight away waa la fahmaya sababtoo ah wadnihi ayaa lagu tusaya lacag hadday timaado ama wax sensation ah kan boyfriend a freak accent with a falling piano father not expected kan ayuu noqonaya newspaperka kan kale singer admits to love sweet cakes kan ayuu noqonaya kadib waa sii soconaysaa wuxuu noqonayaa in dambe contract to be signed for completion March 13 marka asaan ayaad u wadaysaa markii aad ku dhammaatid waxaad leedahay iminka si fiican ayaan fahmay wax walba inaan bixiyo mar rabo marka halkan ayaad ku laalaabanaysaa mar walba test ayaad leedahay markaad istiraadid iminka waxaad diyaar u tahay in imtixaankii aad samaysay bal aan eego progresskii aan sameeyey marka vocabulary functions iyo grammar oo hore aan uga soo sheekeynay isar ayaan leeyahay halkan wuxuu ku leeyahay now you have a chance to test yourself iminka waxaad haysataa fursad aad tijaabo ku samaysid adii aad ku samaysid wixii aad soo qabatay saddexda unit ee ugu horeeyey below hoosa you will find a test on waxaad ku arki doontaa a test oo ah vocabulary functions iyo grammar all the words ereyada oo idil iyo grammarka point waxaa loo isticmaalay exercisekii ama tijaabooyinkii aan hore usoo samaynay tijaabooyinkan waa dhammaan levelada kala duwan haddii aadan ahayn qof advance ah oo meesha ugu sarreysa oo arday ah ha ka welwelin if you cannot answer many questions have a fun muhiimadda waa kaas marka isdiyaar iminka vocabulary waa kan haddii aad reexdid waa 3 units grammar waa 3 units function waa 3 units halkan haddii aan ka bilaabo vocabulary 1 ayaan leeyahay halkan as someone from France waxaa la yidhaahdaa qof waddanka faransiiska yimid maxaa la yidhahdaa franceman maya french ayuu noqonayaa waa halkee meesha gaariga lagu sameeyo waxaa la yidhahdaa where do you get your car repaired garbageka ma ahan a guardian ma ahan waa garage where can you have a sideburns ereygan waxaa la yidhaahdaa a sideburns waxaa laga wadaa salxaha ayaa lagu yidhahdaa afka soomaaliga ama garka wejiga kore ku baxa marka sideka dhinacyada ayuu ka soo baxaa your face tabcan wejigaaga someone from Holland qof ka yimid waddanka Holland waxaa la yidhaahdaa a Dutch ama Hollandesi tabcan Dutch ayaa la yidhaahdaa art is displayed in an farshaxanka gacanta ama artka la yidhaahdo waxaa la geeyaa artifact viewer a gallery tabcan what are the muscles below your thighs waa maxay murqaha ka hooseeya jilibkaaga marka waa in aad sheegtaa halkan kan ayaa ugu dambeeya aan sheegaya akalos ayuu noqonaya iminka intaan waxaa linka doonaya ardayda inay sameeyaan waqti yar waa idin haray a person who escapes with a punishment goes qof wixii loogu talagalay aan guris kana waqti ayaan ku daraya dembiguu sameeyey ka gudbay maxaa la yidhahdaa kaniisad yar maxaa la yidhahdaa a morose person maxaa la yidhahdaa iyo ugu dambeyntii which of these does not affect a nose gaunt roman and bug kuwan waa la garanaya waxay ka socdaan marka kadibna how did I do ayaad leedahay you scored 6 points waxaa tahay qof intermediate ah koorsadaadu waa intermediate bilow matid dhexdhexaad ayaa tahay marka waxaad tegaysaa next test ayaad tegaysaa markii aad tegtid wuxuu ku leeyahay points iyo waqtiga here you find vocabulary form unit 1 unit 2 unit 3 click on a right box waxaad riixdaa boxka saxa ah ku xus Scott wuxuu noqonayaa about town appearance magaalo
araga appearance qaabkiisa iyo dhalashada nationality Scotland waa dadka from Scotland area Scotland area waa nationality marka kadib a kiosk halka laga helaa waa tabakayo magaalada laga helaa kadibna chapel waxa laga helaa isla magaalada laga helaa a young appearance ayuu noqonayaa qaabkiisa he's a young man haddii lagu yidhahdo appearance kan ayaad xulaysaa kadibna a florid about town a Dane a nationality waa Danish qofka a mall townka ayuu ku yaalaa Englishman waa nationality waa fahmaysa isla markii a brunette a gabadha timaha yaree madow waa appearance qaabka loo arko a gym wuxuu ku yaalaa at magaaladu ku yaalaa you scored 8 points by this score your level is advanced ayuu noqonayaa average waxaad aadaysaa next test ayaad aadaysaa markan aad ayuu muhiim u yahay a vocabulary wuxuu leeyahay a click on the blocks halkan ayaad riixaysaa to make a word si aad erey ugu samaysid that go with the clues on the right ereygaasoo oo ku siinaya a clue waxaa la yidhahdaa wuxuu ku siinayaa wax aad fahmi kartid oo maaragtay wax yar iga sheego kale ayuu noqonaya marka make sure waxaa hubisaa that you click the blocks on the right order marka istar haddii aad tidhaahdid uu soconayaa san ayaa u soconayaa isba niyad waa kas point ay ku hesho waddan ayaa leedahay waa country san ayuu u soconayaa iswit zer land san ayuu 2 point marka inta kale waxaa lagaa doonayaa in aad adiga samaysid ereyada kale oo ujeeda waqtigana uu kugu socdaa marka chance ayuu ku siinayaa kan adiga ayaa san u soo qabanaya hadda waxaan u jeedaa waddan kale aan u jeedaa laakiin adiga ayaa laga doonayaa in aad sidaad u samaysid kaas waa muhiim iminka waxaan tegayaa homeka ayaan tegayaa markuu ii soo baxo waxaan eegaya marka grammar ayaan tegayaa grammar ayaan ka bilaabayaa wuxuu ku leeyahay halkan here are 27 sentences halkan waxaa yaala 27 sentence with a grammar kaasoo naxwa la socdan you have done it in units 1 iyo 2 iyo 3 ayaad ku soo aragtay the sentence are in a group of 3 saddex group ayuu isu wataa only one sentence in each group iyadoo hal sentence halka group uu raacayo kaasoo sax ah but you can choose more than one sentence waxaad xulan kartaa choose wa xulashada more than one a sentence if you are not sure the first 3 group of the sentence are elementary the next 3 are intermediate and the last 3 are advanced haddii aadan hubin waxaa loo kala saaray below dhexdhexaad iyo kan advance ugu horeeya marka wuxuu ku leeyahay group 1 elementary wuxuu ku leeyahay during the Christmas holidays we go to many parties marka kan ma sax baa during the Christmas holidays kan labaad wuxuu ku leeyahay we go to many parties iyo ugu dambeyn wuxuu leeyahay during the Christmas holidays we go to many parties marka haddii aan kan xulo maxaa dhacaya choice remaining one score sababtoo ah waxaan xushay a capital letter ku halkan galay iyo parties u noqday saan ma oran kartid parties markan waxaan idin leeyahay waa advance marka waxba ka wulin aadin halkan hadduu dhib ku noqdo xilliga aad soo bartid ayaad ku laaban kartaa next ayaan leeyahay elementaryga my sister and I works in London my sister and I work in London my sister and I work in London marka akee sax ah waxa sax ah kan طبعا ما ahan try again kan ayaa sax ah my sister and I work in London I are ma dhihi kartid طبعا I waa inaan dhahdaa next ayaan leeyahay a red big sports car a big red sports car iyo a sports red big car kee saxa marka indhahaas fiican u qabo a red big sports car a big red sports car kan ma dhihi kartaa طبعا waa sii soconaysaa marka adiga ayaa sii soconaya marka haddii aad tiraahdid xoogaa kan waa advance waxba ha gelin ee ka soo laabo meesha dusha tag meesha ka soo kala ogow haddii halkan tago 2 aan tago adiga ayaa lagaa doonaya this time you must choose one of these 3 sentences and decide if it's right or wrong iminka waxaa lagaa doonayaa inaad xushid one of 3 mid ka mid ah if it's right or wrong hadduu sax yahay hadduu qalad yahay elementary sentences are worth 1 point hal point ayaad ku helaysaa intermediate 2 point
iyo advanced-kana ugu sarreeya waxaad ku helaysaa 3 points. Marka choose whether entries elementary-ga that club is for women only 1 point ku helaysaa. Intermediate, how much time do we have? The coffee I prefer is Arabian. Marka haddii aan idhaahdo how much time do we have haddii aan idhaahdo right aan idhaahdo kan isla markii 2 points aan score aan ku helay. asaan ayuu soconaya marka adigoo ardayga ah ayaa laga doonaya inaad sii wadid. kadibna waxaan tegayaa grammar 3 ayaan tegayaa iminka xoogaa waa sii adkaanaya. How clear is your understanding of grammar? naxwa fahamkaaga bal noo sheeg heerku gaarsan in the box on the right oo kan ah sanduuqa halkan yaala is a picture waa sawir. As you choose the correct answer mar alla markaad xushid ereyga saxa ah the picture will become a clearer. sawirka wuxuu noqonayaa mid si fiican loo arkayo. waxaad meesha ku yaala wule you have 3 sets of 3 questions. waxaa halkan ku yaala 3 nooc oo kala duwan oo su'aalaad ah. kan ugu horeeya first level waa elementary waa bilow ahaan. secondary waa intermediate dhexdhexaad iyo kan ugu dambeeya advanced. when you all questions click next level ayaa tegaysa. marka wuxuu ku leeyahay elementary-ga choose a correct plural. markaan in lahaa waan soo gaari karnaa waan soo gaari doonaa pluralka waan soo gaari karnaa waa kan waan soo gaarnay. childs, children iyo children's kaa saxa. marka ugu horeyn qofka halkan ayuu ku boodaya. okay, which one is correct? You are, he are, we is. You are haddii aan riixo of course. How many adjectives are in this sentence? Last month was very cold month. haddii aan idhahdo to طبعا next level ayaa tegaysaa waa sii wadaysaa. choose the uncountable noun which forms of the present simple right and use auxiliary to do. marka kan haddii halkan aad soo gaartaan ma doonayo in xogaa idinku adkaado aad ku wareertaan. gadaal u laabo mar walba sababtoo ah waan idin bari doonaa qaabka ay u shaqeeyaan adjective-kan qaabka ay u shaqeeyaan different way oo loo soo qaado noun-ka inkastoo noun-ka wuxuu yahay aan soo ogaanay. ugu dambeyntii functions kan waa muhiim. casharadii hore ku soo aragnay waa 3 function. function 1 waxa dhaca functionka waa waxa dhaca. waxaa muhiim ah inaan ogaano xilliga aan ku hadlayno ingiriiska waana isku dhex qasnaa Soomaali Ingiriis. marka function 1 haddii aan sidaan u riixo kani waa ka sii adag yahay kii hore. you are the party waxaa joogta xaflad. while you are there you'll have to use introduction spirit weydiin iyo raaligelin. read the situation at the top of the H box and then choose right reply. blue box are elementary, brown box are intermediate iyo grey box more advanced. marka xaflad ayaa joogta waxaad samaynaysaa isbarid weydiin iyo raaligelin. marka mid kasta boxku yaa ku sax. your friend says saaxiibka wuxuu yidhi hi I'm glad you could come. hi saaxiibka wuxuu yidhi hi waxaan ku faraxsanahay. I'm glad waa ku faraxsanahay ereyga haddii loo dhaweeyo you could come inaad imaatid. maxaad ugu jawaabaysaa how do you do? how are you doing? haddii kan aan riixo طبعا kan ayaa saxa. how do you do waa qofkaadan aqoon ayaa la yidhaahdaa. qof haddii ku yidhaahdo oo aadan aqoonin ay isaga hor timaadaan uu ku yidhaahdo hi waxaa leedahay how do you do sidee tahay iyo guudnaad mari kartid. markaas ayaa soo gashay. you meet your friend waxaad qaabishay ama asarteen saaxiibka aabihiisa wuxuu ku yidhi how are you? I'm okay hello maa leedahay. hello Bill I'm cool ama good evening Mr. Smith. طبعا kan ayaa fiican. marka waqtiga waan ku sii daraya kana ka walwalina. good evening Mr. Smith ayaa leedahay. markuu dhammaadana waan ku laabanaya sababtoo ah waqtiga aad u yar. function kadib halkan haddii aad tahdo you meet your ex girl boyfriend gabadha saaxiibka ama saaxiibada ayaad aragtay who says oh it's you ma adigiiba ma waxaad leedahay haa yaa tahay adiga. haa waa sax waa iyo hello in nice to meet you kan ayaa saxa sababtoo ah ma dhihi kartid nice to meet you waa qof hadda kugu horey maahan. qof ayaa ku weydiiyey do you want to dance? ma doonaysa inay la ciyaartid? oh all right then okay then waxba kama qabo. yes sure thank you very much ma oranaysid yes sure ayaad leedahay waa sax waan kula ciyaarayaa. saaxiibka wuxuu ku yidhi dancing makes me thirst.
xilliga qoobka ciyaarka waan ku oomaa ama thirsty waxa la yidhahdaa oonka ayaa la yidhahdaa. Would you like a drink? Ma doonaysaa cabitaan? Yes, doesn't it? Ama oh, why is that? marka kan ayuu noqonayaa. iyo inta kale ninka ayaa ka jawaabaya kan ayaa ugu dambeeya. Your friend asked you, saaxiibka wuxuu ku weydiiyey, do you mind if I open the window? Okay ma tahay haddii aan dariishada aan furo? Yes, of course ma leedahay. No, it's too cold. maya waa qabow. It's bit cold outside. haddii kan aan xulo kan ayaa saxa. marka sidaas ayuu u soconaya ilaa meesha ugu dambeysa aad tagtid adiga ayaa lagaa doonaya. Function 2 haddii aan tago wuxuu leeyahay this is a function's obstacles course. obstacle waa waxa ka hor yimaada ama waxaa rabtid inaad samaysid ka hor imaanaya. marka waa inaad xushaa jawaabta saxa ah dhanka greenka. wuxuu ku leeyahay you must choose waa inaad xushaa your answers jawaabahaga from the section in green dhanka midabka greenka ah. each time there are the correct choices. waqti walba oo aan helno ama la helo labo jawaab oo sax ah. wuxuu ku leeyahay each time there are 2 correct choices and 2 wrong choices. if you click the wrong box haddii aad riixdid sanduuqa qaladka the test will end. wuu kaa dhammaanaya immediately isla markii. ereygan waa muhiim. immediately waa isla markii wuu kaa dhammaanaya. so be careful saawgeeda iska ilaali. halkan wuxuu ka bilaabayaa you will meet Miss Jones. waxaad qaabishay Mr. Jones shakhsi la yidhaahdo who will be with you for this functions test. you say I am pleasing to meet you. how do you do? hello Mr. Jones. hi, how do you do? kan ayaa saan riixayaa marka kan ayuu ii gudbiyey. marka ma dhihi kartid I'm pleasing to meet you. marka waa sentence qalad ah. afkaaga ayaa garanaya. waxaa le you want to know how to do this test. ma doonaysaa qaabka loo sameyn ogaatid. you say now tell me what to do. what shall I do now? what am I doing now? can you tell me what to do? kan haddii aan xulno isla markii jawaabtiina waa sax. wuxuu u soconayaa sidan you accidentally tread on Miss Jones' foot and you say adigoo ugu talagalin oo si qalad ah ayaad waxaad ku istaagtay ama aad dulmartay ood ku yara istaagtay lugta Mr. Jones. marka waxaad leedahay oh did it hurt? ma xanuun ba? oh I'm very sorry. sorry did I hurt you? oh yes sorry. marka kan haddii aan xulo maxaa dhacaya? halkan ayuu geynayaa. you want to introduce your friend Bill to Mr. Jones. you say waxaad doonaysaa saaxiibkaaga Bill la yidhaahdo in aad bartid. introduce waa baritaanka la isbaro. marka maxaad leedahay ereygii lagaa rabay. you want to ask Mr. Jones waxaa lagaa rabaa in aad u sheegtid sida ku habboon ee qofka loo baro. marka saan ayuu soconaya. saan ayuu usoo wareeganaya. saan ayuu u soconaya. waxaa lagaa doonayaa in aad fahantid ilaa meesha ugu dambeysa. marka kan haddii uu dhib kugu noqdo waad farahayda ka qaadaysaa. waan baranaynaa laakiin leveladii kala duwanaa halkan ayuu ku yaallaa. vocabulary-gii grammarkii functionka halkan ayuu ku yaallaa. mar walba waxaa isku dayda inaad ku laabatid. marka waxaan sameynayaa in timeka 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo xilliga casharka aad bilowdaan idin soo gaaro. marka waxaa muhiim ah in aad insha allah tijaabo aad samaysaan. wixii aadan garanay email aad kusoo dirtaan info @solo groups aad tirahdaan kan wuu adkaa sidaan kaga gudubnaa. laakiin waxaa hubaal ah in waxyaabo badan aad ka faa'idi kartaan. laakiin kan waa in aad ka bilowdaan. haddii kan aad ka bilowdaan wax laga fahmi kara male. marka linkiga aad raacaysaan idin soo diri doono ardayda memberka ka ah. halkaad ayaan kasii wada doontaa. marka waxaan filayaa casharkan xiisaha leh ee aan ku baranay test your English ama tijaaba Englishkaaga halkan ayaan kaga baxayna. wuxuu ahaa English level iyo progress test ayuu ahaa. wixii macluumaad mar walba ICT iyo English ku saabsan info@sologroups.com ayaa kusoo diraysaan. anigoo ah macalin cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan kaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.